بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. marka koowaad ilaahay baa mahad leh ilaaha inagoo nabad qabno caafimaad qabnayna gaarsiiyay maanta oo ku suntanayd inuu bilaabmo imtixaankii sanad dugsiyeedka 2020 ee Somaliland waxa marka koowaad ugu bishaareynaya dhamaan Somaliland oo dhan mas'uuliyiinteeda iyo waalidiinteedaba in imtixaankii dalka maanta ka wada bilaabmay 8 subaxnimo oo imka qadar 10 daqiiqo laga joogo dalka oo dhan dhamaan markii horena uu nabad ku wada gaadhay meel awna gaadhina aanay jirin min koona ilaa koone buraan ba xagga ugu bariyaysa xaggana waxa ugu bariyaysa saylac intaba imtixaankii saaka uu ka wada bilaabmay wax mashaakil oo jiraana ma jiro marka inta kaga tagno ilaahay ugu mahadnaqno waxaan halkan rabaa inaan yar ka sheego tirada sanadkan imtixaanaadka u fadhiisanaysa sanadkan imtixaanaadka tirada guud ee u fadhiisanaysa waxa weeye dugsiyada dhexe 22148 arday marka la eego wiilasha waa 12290 hablaha 8850 taasi waa dugsiyada hoose primary-ga ha dugsiyada dhexe wax muhiim oo weyn kuma jira gobol hadeen isnaano u sheega waqtigun ba waxa ma laakiin tirada guud waa inta dugsiga sare tirada ardayda u fadhiisanaysa sanadkan waxa weeye haduu ilaahay ilaa 11701 arday wiilasha sanadkan u fadhiisanay waxa weeye 6858 hablaha oo runtii aan kaba yareen 4816 hablood ayaa u fadhiisanaya dhammaantood waxaan u rajaynaynaa guul iyo darajo fiican inay ku baxaan marka inta ka tagno waxa ka qayb qaadanaya gaadiid dhan 287 baabuur ugu yaraan inta imika hawlgalka ku jirta waxa kordhi doono soo gali doono kormeer iyo waxyaabo kale oo fara badan oo soo bixi doona ilaaliyaasha ama invigilatorka waxaan loo yaqaanay kalaasyada macallimiinta ilaalinaysa ardayda waa 2388 arday askarta ama ciidanka qalabka sida ee ka qayb qaadanaya waxa weeye 750 askari ayaa ku bilaabmay subaxa saaka caawiyayaasha waxa uu jira assistants wax la yiraahdo oo caawiya ninka supervisorka waxa uu iyaguna waxa 250 una badan runtii haween ama hablaha يعني واي aragay wasaaradda waxbarashada markaan eegno inta gooboodu imtixaanku ka dhacay sanadkan halku sanadkii hore waxaad moodaa in tira in aad santar badan ugu soo kordheen 260 santar oo dalka oo dhana ayuu ka dhacaya tirada dugsiyada ka qayb qaadanaya guud ahaan marka la isku daro 707 iskuul ayaa imtixaanaadka ka lug leh waxaas dugsi sare ah 151 iskuul ayaa dugsi sare ahaan ka qayb galaya dugsiyada hoose dhexe waxa ka qayb galaya 556 iskuul waxaad moodaa marka sanadkan in aad u ardayda iyo santarada iyo wax waliba ay zaid yihiin waana ilaahay mahadii sanadkan sanadkii ka horeeyay imtixaanku hal maalin baynu qaadnay laakiin maanta ilaahay naxariistiisa iyo raxmadiisa iyo sidoo inoogu khafiifiyay wixii loo jiro COVID-19ka waxa noo suurtoobaysa in 6 maalmood ee loogu tala galay imtixaanka dugsiga sare u dhaco ka hoosana 4 maalmood baa loogu tala galay oo dhaco sida darteedna waxaan ardayda u rajaynaynaa guul iyo caafimaad waana u sheegnay wixii loogu tala galay ee COVID-ka ku saabsan oo dhan oo afsaarkiyo waxaana horaan ugu sheegnay ardayduna waa inay soo qaadataa haduu ilaahay ilaa inka soo suxufiyiinta badidooduba aniga dhexdiga ka soo dhacay ha ayna sidan laakiin waxa weeye laakiin ilaahay mahada ka gaadho caafimaad baynu dareenay caafimaadka wax walba ogeysay ilaahay caafimaadka inoo sii siyaadiyo ayaan rabaa inta iyo duco wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh intaanu wasiirku u galin hal su'aalan ku weydiiyo Puntland waynu la soconaa sanaag bari waxay sheegtay in aanay wax imtixaanaad oo ay Somaliland qaadaysan jiri doonin gaadiid baad dirteen
hadda ma gaadheen oo deegaanada imtixaanaadku ma ka bilaabay degahaaga aad u furo waxaan ku yidhi meel walba imtixaanku wuu ka socdaa iyagana haddaa rabto taleefon anigu dee siyaasiyiin mayno ma raba inaanu u jawaabno iyo dad isku jawaabo kama hadlayno ardaydii Soomaaliland sanaag bari imtixaankii way u fadhiyaan wax mushkilado ka jirtaana ma jirto wuuna socdaa saacadaad ila hadlaysid waka maanta oo taariikhdu tahay 19 bisha sabti ay tahay waxa ka bilaabmay Soomaaliland koone ilaa koone sayl ilaa buraan waxa ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa fasalada 8aad iyo fasalada form 4ka ah ama afraad ee secondary-ga imtixaanku midba meel walba u gaaray halkii loogu talagalay sayl ilaa buraan imtixaankii waa lagu jiraa saaka si nabadana waa lagu jiraa wax dhibaato jirtaan ma jirta ardaydina ilaahay waa khafiifiyo waa in badan bay soo dadaalayeen qaar baa yara kala naxa ilaahay ha u khafiifiyo inkastoo ninkii carbeedu yidhi man jadda wajada ninkii dadaalaa u guulaysta kii dadaalay u guulaysan doona grade one isma guulaysana kii meermeerayna ilaahay ha u sahlo waynu ducaynaa mid walba ubadkeennii kolkaa wax dhibaato ma jiraan guul baynu rajaynaynaa Soomaalilandna ha guulaysato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh